الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، waxaan ku dhex jirnay mowduucii aan fariimaha ugu direynay dhalinyarada muslimiinta ee waqtigan jooga. khudbadii hore waxaan kaga soo hadalnay ahmiyadda iyo khatarta ay leedahay marxalada dhalinyaranimadu. waxaa kaloon ku tilmaanay fariintii ugu horreysay oo ahayd inay dhalinyaradu fahmaan oo ay fiqhigeeda yeeshaan marxaladaas halista ay leedahay iyo siday muhiimka u tahay. khudbada waxaan ku qaadanaynaa laba fariimood. fariinta koobaadi waxa weeye marxalada dhalinyaranimadu maadaama aada fahantay inay tahay marxalada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan noloshaada, ha dayicin, ha luminin, ha khasaarinin. waxaad gelisaa ood uga faa'iidaysataa wax aakhiradaada iyo adduunkaaga ku anfaca. nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ka sugan inuu yihi ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid ah waxyaalaha aan dani ugu jirin oon faa'iidada lahayn inuu isaga tago. waxyaalahaan dani kuugu jirin oo aan waxba kaa soo gaadhayn, waxna kaa soo gelaynin, khasaaro mooye isaga tag, wakhtigaagana ha gelinin. wakhtigan waa tabac. wakhtiga dhalinyaranimadu waa wakhtigii tabaca. wakhtiyada ka dambaysana inta badan waa wakhtigii la goosto wixii aad tabacday xilligaa dhalinyaranimada. hadday ku dhaafto waad qoomamoon doontaa, fartaad dhexda ka qaniini doontaa, xilli ayna waxba ku taraynin. allow maxaa dhallinyaranimadii yaa igu celiya. oday 70 jir ah oo Soomaali ah ayaa maalin dhaweyd ii yimid. waa injineer diyaaradaha ah. talyaani buu ku soo bartay 40 sano ka hor, laakiin diin badan, aqoon badan oo diineed ma yeelanin. hadda markuu cimriga 70aad jooga ayuu wuxuu ogaaday wixii uu lumiyey iyo dariiquu qaaday inuu khaldanaa. markaatuu farta dhexda ka qaniinsan yahay, leeyahay haddaan maanta la ii celin lahaa dhallinyaranimadii dariiqaa ma mareen, balse waxaan baran lahaa ilaahay diintiisa tabaaraka wa tacaala, kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam. sidaas daraaddeed ka faa'iidayso marxaladan. maalinta qiyaamada ilaahay nicmooyinkiisa layna weydiin doono waxaa ka mid a cimrigeenna. si gooniya waxaa laynoo weydiin doonaa oo cimriga ka mid ah marxalada dhalinyaranimada. taasina waxay ku timid xadiidka nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam, cabdullahi ibn mascuud uu ka warinayo. wuxuu leeyahay nebi moxamed sal alla alayh wasalam, addoonku maalinta qiyaamada meesha labadiisa lugood ay taagan yihiin ka dhaqaaqi maayo, kana zuuli maayo ilaa la weydiiyo 5 arrimood. ilaahay baad hor taagan tahay, wehel ma leh, cid ma leh, wax ma leh, qaraabo ma leh, adigiyo ilaahay baa is hortaagan keligaa. waa 5 su-aalood baad ka jawaabi. cimrigaagii maxaad ku dhammaysay? waa cimrigii guud. haddaad dhallinyaranimo soo martay oo aada garhmadoobe martay oo aada odaynimo martay, cimrigaagii dhammaantii su-aal baa saaran. wuxuu nebigu yihi sal alla alayh wasalam, dhallinyaranimadiina meeshuu ku baabi'iyey. dhallinyaranimadu soo cimriga ka mid maaha. maxaa gooni loogu sheegoo loogu magacaabay oo loogu soo saaray? lianna waa nicmadu xilligay addoonka ku dhammaystiran tahay xoog iyo caafimaad iyo awood iyo nashaad iyo karti xilligay dhammaystiran tahay. waa in si gooniya laguu weydiin ku talagal. marka dhallinyaranimadaadii xaggeed ku bixisay? ma ciyaar iyo lahwi iyo waxaan macno lahayn iyo waqti lumis, mise wax ku anfacaad ku bixisay? ma taacada ilaahay baad ku bixisay
mise wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn baad ku bixisay dhallinyaranimadii waa lagu weydiin si gooniya cimrigii kalena waa la iswarsan wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam xoolihii meeshii ay kaa soo galeen aad ka kasbatayna waa lagu weydiin meeshii aad ku bixisayna waa lagu weydiin waxaad baratay waxaad kaga dhaqanteed kaga camal fashayna waa lagu weydiin shantaas su-aalood marna afar noqon karaa ilaa lagu weydiiyo lugta meeshaad ku haysa ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi weyse ku talagal marka nicmada dhallinyaranimadii marka waa nicmo khaasa nicamka la isweydiin doono uma latus'alunna yowmaidin cani nnaciim ta ugu muhiimsan waayo su-aasheedii diyaari marka su-aashaa jawaabteedii ilahay aad la hortegi lahayd diyaari dhallinyaranimada ka faa'iidaystaa waxyaalaha qashinka ah ee waayahan dambe waktiga lagu lumiyo waktiga ha isaga luminina musalsalaad filima ah oo wakti badan lagu bixiyo internetka oo kolba mitrog ya maqaayadaha fadhiiso oo sheeko iyo fadhi kudirir iyo waxaan macno lahayn waktigaagu waa qaali waa waktigaad wax beeran lahayd waktiga ka faa'iidaysta nabigeenu sala allahu calayhi waaalihi wasalam sidoo kale wuxuu leeyahay 5 arrimood intaysan kugu imaanin 5 ka faa'iidayso shantaa waxaa ka mid a dhallinyaranimada ka faa'iidaysay intaysan da' iyo duqnimo kugu imaanin caafimaadkaaga ka faa'iidayso markaad caafimaad qabto intuusan cudur kugu imaanin qaninimada iyo markaad ladan tahay ladnaanta xoolo markaad ladan tahay ka faa'iidayso intaan faqri kugu imaanin firaaqada markaad firaaqo haysatoodan mashquulsanayn ka faa'iidayso intaadan mashquulin noloshaada ka faa'iidayso intaysan geeri kugu imaanin dhallinyaranimada ka faa'iidaysta intaysan da' imaanin dhallinyaranimada inta badan waxaa la socda firaaqada iyo caafimaadka iyo xooggaa la socda laakiin dadka intooda badan way martaa iyagoon ka faa'iidaysanin ama dayacay waana ta nabigeennu ku tilmaamaya xadiidka saxiixulbukhaari min xadiid ibni cabbaas 2 nicmo dadka intooda badan kama faa'iidaystaan nuqsaan baa gasha maxay yihiin waa caafimaadka iyo firaaqada buu nabigu yuri sal alla alay wasalam markaad dhallinyaro tahay inta badan reer iyo caruur iyo culayskooda kuma haysto irtibaadaad badani ma jiraan markaad dhallinyaro tahay xooggaaga iyo caafimaadkaagu waa dhammaystiran yahay nashaadkaaga iyo awooddaadu waa dhammaystiran tahay macnahaasuu nabigu tilmaamaya sal alla alay wasalam risaalada xigta waxay tahay haddii aan nidhi waktigaaga waxaad gelisaa wax ku anfacayo dhallinyarnimada uga faa'iidayso su-aasha imaanaysa waxay tahay waxyaalaha i anfacaya waa badan yihiine say u kala horeeyaan keen priority-ga siiyaa mudnaanta keen siiyaa keen ka bilaabaa su-aal jawaabteedu waxaad ka bilowdaa waa risaalada 3aad waxaad ka bilowdaa meeshii alla ka bilow ku yidhi meeshii nebigu ka bilow ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh tilaabadaadu halkaa ha ka bilaabato oo muxuu yahay cilmiga diinta iyo shareecada barashadeeda allah wuxuu ka hormariyey laa ilaaha ila allah oo kelimatu tawxiida cilmi buu ka hormariyey faclam annahu laa ilaaha ila allah nabigeennu wuxuu yihi sal alla alayh wasalam ciddii ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa haddaadan diinta fahansanayn khayr ma lihid yaa yidhi nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh mafhuumka xadiidku sidaas weeye haddii aan khayr lagula rabin diinta fahamkeeda iyo barashadeedaa lagu garamariyaa waxba kuu tari mayso markaasi brofesor baan ahay dhakhtar ah waxba kuu tari mayso injineer baan ahay waxba kuu qaban mayso siyaasi khabiiraan ahay waxba kuu qaban mayso waxaan ahay khabiir dhaqaalaha ku takhasusay waxba kuu qaban mayso mar haddaad asaasku kaa lumo fiqhigii diinta iyo fahamkeedu kaa lumo waad lunsan tahay 100 goor haddaad khabiir tahay maxay khabiirnimadaadu anfacaysaa ilaahagii ma taqaanid sida ula xidhiidhana ma taqaanid aakharana ma taqaanid si aad ula dhaqantana ma taqaanid maxay kuu taraysaa culuum adduunyo iyo barashadeedu maxay ka anfacday maxayse kuu tartay sidaas daraaddeed ka bilaaba meesha ilaahay ka bilaaba idin yidhi nebi maxamed sal alla alay wasalam markuu ummaddan u yimid
dhalinyaradeedii iyo odayaasheedii wuxuu uga bilaabay wayucallimuhum alkitaaba walxikma aqoon iyo barasho iyo iftiin inuu geliyo jahliga iyo mugdigana ka saaro halkaasay ka bilaabatay meeshaasay marka tilaabadii ugu horreysay ka qaadeen camalka dhankiisay u qaadeen dacwadii bay u qaadeen jihaadkii bay u qaadeen bilaadda iyo quluubtaba inay furaan bay u qaadeen laakiin xaggay tilaabada ka bilaabeen wayucallimuhum alkitaaba walxikma cilmiga iyo barashadiisay ka bilaabeen waa midda keentay in badanoo dhallinyaradeenna maanta inay lunsan yihiin inay wareersan yihiin inay sarqaansan yihiin in meel laga jiriyo meelay u socdaan midna aynan garanaynin leanna aqoontii diintay lumiyeen nin aqoon diineed lumiyeyna waa lunsan yahay sidaas daraaddeed diinta barashadeeda ku dadaala marxaladaad dhallinyarada tihiin oo diinta barta diinta barashadeedu waa badbaadada ummadda waana badbaadadiinna waa nebi maxamed wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ilaahay cilmiga ma qaado quluubta addoommada uu ka siibo kuma qaado laakiin cilmiga wuxuu ku qaadaa inuu culimmada dilo ay culimmadu tagaan wakhtigoodu dhammaadona israacaan markay culimmadii cilmiga xambaarsanaa tagaan dad marka waxaa soo hadhaya aan aqoon lahayn ummaddii aqoon ma leh culimana ma leh meelay u noqoto ma leh kuwa aan aqoon lahayn baa booskii culimmada marka fadhiisanaya diintii baa wax laga weydiinayaa iyaguna waa lumeen dadkana waa lumiyeen ummaddii luntay ummaddan badbaadadeedu waa culimmada culumta shareecada xambaarsan baa badbaadadeeda maalinkan la waayana ummaddii luntay hadday luntana adduuniya aakharaba khasaartay ummaddan badbaadadeeda ka shaqeeya cilmi diineed iyo diin inaad ku badbaadisaan wax kaloo badbaadin kara ma jireen laakiin xaaladdu siday maanta tahay dhallinyaradii mushkilada haysataa culimmadiina waa tageenoo israace dhallinyaradiina culumtii diinta waa lagu kari la'yahay midkooda ugu rooni waa midka culumta adduunyada ku dadaalaya mid ganacsiga adduunyo eryanaya mid culumta adduunyada fiisiyaha iyo kiimiyaha iyo sayniska iyo culumta iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo xidhiidhka iyo bay ku mashquulsan yihiin culumtii diintuna waa la yaraato waa la fududaatay wax weyn maaha lianna waxay noqotay wax walboo la baranayo in hunguri adduunye laga raadiyo diintiina wax qumanoo wax isku siinayaay ma jiro waa laga tegay marka yaa raba waxaa soo socda oo laga yaabaa inay timaado ummaddan ku timaado xilliga nebi maxamed tilmaamay sal alla alay wasalam inay diintu duugoobi doonto baabi'i doonto sida marada xararkeedu u baaba'o oo kale ilaa kitaabka ilaahay habeen inta lagu soo guureeyo asagoo dhan dhulka laga qaado hal aayad dhulka ku hadhi mayso lianna dadka dhulka joogaay ma istaahilaan in kitaabka ilaahay loo daayo waa laga qaatay waxaa soo hadhayoo dadka dhulka ku soo hadhaya muslimiinta oday da-ah iyo habar duq ah markaasaa waxay haystaan kelimada laa ilaaha ila allah awow iyo aabbay ka soo gaadheen laa ilaaha ila allah bas salaad lama yaqaano oo saka lama yaqaano oo soon lama yaqaano oo gowrac iyo nusug lama yaqaano laa ilaaha ila allah basay ku dhagan yihiin aabbihi awow ka soo gaadheen aaway diinta inteedii kale baaba'day maxaa keenay inay baaba'do culimmadeediina waa dhimatay dhallinyaradeediina waa ka jeesatay marxalad halisa waaye war intaad wax kale raadinaysaan qiimo ka weyni ma jiro in ay kuu duceeyaan malayga badda ku jira inay kuu duceeyaan quraanjadu kuu ducayso kor iyo samada lagaaga duceeyo dhulka iyo makhluuqaadku kuu duceeyaan malaa'igta ilaahay kuu ducayso wax ka qiimo badani ma jiro oo say ku imaanaysaa inaad noqoto mucallimu nnaasi alkhayr dadka khayrka iyo wanaagga dadka bara imaam dadka ay ku daydaanoo wanaagga iyo khayrka iyo culumta diinta xambaarsan ummaddana ku anfaca mansile ka qiimo badan oo aad gaadhi kartaani ma ay jirto sidaas daraaddeed tillaabadiinnu ha ka bilaabato diinta inaad barataan ood ku mashquulsaan bad-an kitaabka ilaahay ood ka bilowdaan sunnadii nebiga sal alla alay wasalam fiqhigii diinta culumtii shareecada halkaasay ka bilaabataan
إلى أن رسائشي فرمها كلك كل من أنت إيه. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.